waxaan filayaa wixii badheedhaa ee xagga dhaqanka rag badan baa halkan ka soo jeediyey guubaabo fara badanna idinka jeediyey haddaad dadweynaha tihiin iyo taageerayaasha musharaxa aynu caawa halkan uga dabaaldegayno ee Cali Guri anigu waxaan doonayaa inaan marxaladda aynu maanta marayno aan in yar dib idinku celiyo wiigagiina soo dhaafay ama bishiina soo dhaaftay waxaa dalka ka dhacay Somaliland guud ahaan diiwaangelin aad iyo aad ballaadhan diiwaangelintaasi aad iyo aad baa dadkii dhalinyarada ahaa ee da'doodu weynaatay ee 15 jirka noqday ay isu diiwaangeliyeen berigii hore diiwaangelinta waxaa laga qabay shaki fara badan dhacayado ayaa lagu furay berigii hore diiwaangelinta oo waxa la yidhi qofkii indhaha iyo laga qaado faraha hadhowto isma dhiibi karo wadamada reer galbeedka iskama dhiibi karo tiina been bay noqotay talabaad ee aad la isugu diiwaangeliyay horta magaalo kastaba diiwaangelinta ku soo biirtay waxay noqotay in ka badan boqolkiiba 35 gobolkan aynu joogno ee saaxila diiwaangelintiisii hore waxay ahayd 780,000 waxa ku biiray 35,000 taasi waxay tusaysaa reer saaxil inay aad iyo aad diiwaangelintii ay ugu soo baxeen soo buux dhaafiyeen iyagoo ulajeedada koowaad ay tahay maanta waxaynu fahamnay muhiimadda ay labada gole leeyihiin labada gole muhiimadda ay leeyihiin waxa weeye golaha dawladda hoose wuxuu maamulayaa gobolka saaxil waxa la yiraahdo oo dhan iyo xuduudihiisa hadday noqoto dhakhtarka hadday noqoto amniga hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto nadaafadda iyo hadday noqotoba samafalka waxaan doonayaa inaan u soo leexdo golaha wakiilada oo caawa halkan Cali Guri ugu dabaaldegayno sida laga wada dhawaajiyay tuulooyinkeenu Somaliland guud ahaan ma helaan wixii loogu talagalay ama wada ha ahaato ama caafimaad ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato ama samafal ha ahaatee tuulona ma hesho Naalay Axmed imika odayaasheedu halka waxay ka tirinayeen ilaa ma dhowr iyo 20 tuulo dhowr iyo 20 ka tuulo waxa laga yaabaa inaanu midna MCH lahayn midna aanu lahayn rug amni midna aanu lahayn meel waxbarasho ragga laga sugayaa waa ragga Cali Guri oo meedana ee aynu dooranayno golaha wakiilada Cali Guri maanta waxaynu uga fadhinaa ilaa intii Somaliland jirtay laba baarlamaan baynu dooranay 93 waxaynu dooranay baarlamaan ku salaysan reeraha waxaanu ahaa baarlamaankii ugu tayada badnaa waayo kolkii shirkii 93 ee lagu soo doortay ilaahay ha u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa la isku raacay in reer kastaaba uu soo saaro ninka shirka u tagi kara baarlamaankii qabyaalada lagu soo dhisay uu ka tayo badnaa baarlamaankii dambe 2005 aynu dooranay maanta waxaad moodaa sharci dejinteenu inay qabyo aada tahay oo loo baahayay in aad iyo aad looga shaqeeyo ragga shaqada laga sugayaa waxa weeye xildhibaanada soo socda
waxaynu doonaynaa inaanay xildhibaanada iminka aynu dooranaynaa inaynu ku dooranno tayo daacadnimo iyo qof u damqanaya dadka iyo dalkaba waayo maanta baarlamaankan tegaya wuxuu inooga tegay qabyo aad iyo aad u badan qabyadaa uu inooga tegay waxaa ka mid ah kala badhow badh sharcigeennu xeer baa qeexi doona ayaa ku yaalla waxaynu u baahannahay inaynu samaysanno sharciyadii bankiyada waxaynu u baahannahay inaynu samaysanno sharciyadii amniga waxaynu u baahannahay inaynu samaysanno sharciyadii ganacsiga waxaynu u baahannahay inaynu sharciyadii dhulka aynu samaysano maanta 30 sannadood baynu jirno sharci dhulka oo inoo yaallaa ma jiro ragga laga filaayo in ay sameeyaanna waa xildhibaanada soo socda waxaan ilaahay uga baryayaa xildhibaanada la soo dooran doono inay qaar noqdaan waajibkooda gutaa annaguna xisbi ahaan waxaanu idinku ballan qaadaynaa waanu ilaahay hortii uga ballan qaadaynaa inaanu idiin soo xullo dad tayo leh taasaan idinku ballan qaadaynaa dad tayo leh oo tacliin leh oo daacada oo dadka u damqanaya inaan idiin soo doorro idinkuna aad nagu taageertaan qofka xisbiga uu oggolaado ha u malaynina qof dhayaldhayala xisbiga wicitayuu wax ku doortaa diintiisaanu eegnaa akhlaaqdiisaanu eegnaa tacliintiisaanu eegnaa daacadnimadiisaanu eegnaa damqashadiisa inuu dadkiisa iyo dalkiisa u damqanayo ayaanu eegnaa markaa waxaan filayaa maadaama aanu cali aanu go ahead siinay ama aanu siinay kaadkii cagaaraa ee aanu ku nidhi war xisbigayagaad iska soo sharaxaysaa inuu yahay nin shiraban oo aanu soo shirribnay oo aanu waddooyin fara badan isla soo marray idinkana waxaan idinka codsanayaa maalinta codka inaydinaa kala bakhaylin soo saas maaha Somaliland ha noolaato